turkigu waxaan ku soo aragnay dal weyn oo diyaar in wax wada qabsano oo taariikh badan ay naga dhaxayso oo awood leh oo niyad sami badan ay ka muuqato una diyaara inaga iyo dalal kale oo badanba khaasatan Afrika inuu soo jeesto wax la qabto inaguna waxaynu mar walba diyaar u nahay inaynu ka faa'iideysano fursadaha inoo yimaada oo aynu dalka iyo dunida u diyaarkeen wax qabato aynu soo dhaweyn iyo sharaf oo aan magaxumo iyo sharaf xumo dadka dunida naga carta inaan la iban aynu limada waxaynu dadku soo jeedano hadday tahay bacamisirkooda hadday kuwa maalgashiga doonaya hadday kuwa siyaasadda doonaya hadday doonaya kuwa magac iyo sharaf doonaya inta aynu u yeelno insha Allah ta'ala inaynu inaguna aynu waajibka iyo xilka ayna saaran ee qaran aynu ka soo bixi doono oo aynu inaguna xilkeena aynu gudan doono waxa la yiri wardimankan Yurubiyanka iyo Mareykanka iyo madaxda reer Soomaaliland ma runta u sheegin baa la yiri waxay waan u sheegnay markay Hargeysa tagay dadkooda been u sheegaan meedah waxaan u soo wax kale sheegaan meedah waxaan u sheegnay ma ahaane waxa dadkooda jecel yahay oo jirin bay sheegaan meedah waxa weey ilaa ay statuskeena bedelo oo adduunka la macaamilo adduunka waxa weey xaaladda markaan ku jirnaa Soomaaliland la macaamilina lama aqoonsanay iska daa mid imanka dhanaysay dawladaha waaweyn baa lagu jeediyaa South Africa maxaa laga qaaday gaaladii sanction markii lagu sameeyay Rhodesia markay boobtay madaxnimadii maxaa lagu baabiyay una qabateen Iran hadda maxaa lagu hayaa oo baaba'aysa ana qabateen adoo dhananaya marka la cunuqad waa dharaysa geed yar oo inta biyo waayo soo geed kuma baqtiyo وين حسابتنايو واحد تعشي ما هو practical نقطة practical reality